dekeda muqdisho waxay ku biirtay midowga caalamiga ah dekadaha iyo marsooyinka ee loo yaqaano International Association of Ports and Harbors loona soo gaabsho IAPH. ururkani waa urur caalami ah, waa ururka ugu weyn isbahaysiyada dekeduhu ay leeyihiin. waxaa la aasaasay 1955tii Mareykanka Los Angeles. waxaa xubno ka ah in ka badan 190 dekedood iyo 167 ama 170 waxa loo yaqaano port related business, ganacsiyada deked ku noolka sida maxaa la yiraahdaa logisticska, dadka maraakiibta iskale, port operatories ama dadka dekedaha maamula. sidoo kale waxay wada shaqeyn la leedahay association-kan wuxuu wada shaqeyn la leeyahay hay'adda qaramada midoobay ee maamusha badaha ee loo yaqaano IMO-da. marka ururkaas waa urur noocaas ah. sidoo kale association-kani wax dekedaha ku xiran waxay handle galeen ama maamulaan in ka badan 60% badeecadaha dekedaha mara. marka ururku waa urur saas u ballaaran sida u weyn. wuxuu ku yaalaa ama xaruntiisu ay tahay hadda Tokyo, Japan. marka intaas ayaan ka sheegi karaa ururka. Maarey Cali Xaaji, waxaad bulshada u sharaxdaa hanaan noocee ah ayaad u marteen inaad ku biirtaan ururkan caalamiga ah? marka lagu biirayo ururo caalami oo sida u weyn waxaa la maraa hanaan aan fududayn taaf ah. maxaa la dhahaa laga bilaabo marka aad codsato foomamka iyo su'aalaha aad buuxinayso, qiimeynta lagu samaynayo, awoodaada, maxaa la habka aad u shaqayso, maxaa la dhahaa ilaa laga soo gaaray inaad qaaraankii iyo ka qayb qaadato maxaa la dhahaa isha contribution-kii ee laga rabay. marka waa process muddo bilaa socday oo hanaan adag la maray. marka maxaa la yiraahdaa ay sheegeen dekeda muqdisho iyada oo dawladda Soomaaliya matalaysa ayay go'aankaas qaadatay in ay shaqada noocaas ah ay qabato si dekeda codkeeda iyo maqaamkeeda kor loogu qaado. maxay faa'iido ah ay dekeda muqdisho u leedahay ku biirista ururkan iyo guud ahaan dawladda? sida og tahay dekeda muqdisho ama hay'adda dekeda muqdisho waxay dawladda u qaabilsan tahay maamulidda dekeda iyo inay buuxiso maxaa la yiraahdaa isbahaysiyada caalamiga iyo maxaa la madallada caalamiga maxaa la yiraahdaa waxyaabaha quseeya dekedaha iyo maamulkooda. marka faa'iidooyin badan ay u leedahay. faa'iidooyinkaasi waxay salka ku hayaan waxyaabaha ay ururkan qabto ama isbahaysigan oo qabto. isbahaysigan oo ka shaqeeya ama waxyaabaha ugu weyn ka shaqeeya ka mid tahay inay dekedaha adduunka dhan u noqdaan cod u noqdaan, ay matalaan oo ay maxaa la yiraahdaa danaha dekedaha adduunka ay u doodaan. sidoo kale inay maxaa la dhahaa ilaaliyaan standardada iyo maxaa la yiraahdaa badqabka iyo nabadgelyada dekedaha iyo maxaa la dhahaa gaadiidka badda. iyo sidoo kale inay maxaa la dhahaa ka shaqeeyaan in maxaa la ilaalisho deegaanka, gaar ahaan deegaanka badda iyo dekedaha oo laga ilaaliyo maxaa la wasaqoobidda. sidoo kale waxay muhiimadeeda ay u leedahay waxaa ka mid ah oo ka shaqeeyaan maxaa la association-kaas oo ka shaqeeyo maxaa la yiraahdaa in isku xirka iyo networking iyo in war la iska qabo oo la iska warhayo, kadibna xogahaas lagu base gareeyo hawl maalmeedka iyo shaqooyinka mustaqbalka maxaa la yiraahdaa sheegeen hor yaalla industry-gan. Maarey, haddaan soo koobno, maxay uga dhigan tahay ku biirista ururkan dekeda weyn ee muqdisho? dekeda weyn ee muqdisho iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya muhiimad weyn ayuu u leeyahay ku biiristani. waa midda koowaad dawladda Soomaaliya waxaad ogtahay waxay ku jirtaa hanaan soo kabasho ah oo ay kaga soo baxaysa burbur muddo badan socday, recovery. marka taa macnaheedu marka waxa waaye waxaa ka mid ah in la buuxsho madallada caalamiga, in hay'ad walba dawladda ka mid ah ay madasha ku habboon ay buuxiso si codkeedan uu meel u gaaro. sida wax loo maamulo iyo hanaanka adduunka u socdo iyo maxaa la digitalization-ka iyo hababka casriga ee dekedaha lagu maamulo si ula socoto.
marka maxaa taas waa midda koobaad. Faa'iidooyin kale uu leeyahay waxa waaye markii aad ku biirto maxaa la dhahaa urur aad ku biirto waxaa ku fuulaya maxaa la yidhahdaa waajibaad ay tahay inaad gudato. waa inaad istaandarada adduunka aad ilaaliso, waa inaad badqabka maxaa la yidhahdaa dekeda iyo shaqaalaha iyo maxaa la dadka ku imaanaya maraakiibta aad ilaaliso. sidoo kale waa inaad maxaa la dhahaa maxaa la environmentiga iyo deegaanka waa inaad ilaaliso. oo hadda adduunka uu maxaa la yidhahdaa gaar ahaan maxaa la yidhahdaa industrigan hadda aan ka hadlayno iyo qaybtan aan ka hadlayno ay muhiimad weyn saarayaan oo ay rabaan inay maxaa la ilaaliyaan. sababtoo ah maxaa la dhahaa dee adduunka qayb walba ka mid ah waxaa la yidhi wasaqoobida hawada aad wasaqeynaysiin waa inaad maxaa la yidhahdaa ama yaraysiin ama joojisiin. sectorkan hadda maxaa la dhahaa maraakiibtu qayb yar ayay ku leeyihiin maxaa la yidhahdaa wasaqoobida hawada 3% meelahaas ayay waxaa la yaqaano greenhouse gas emission waxaa la yidhahdo ay 3% ku sii dayaan. marka adduunka hadda dadka maraakiibta sameeya iyo maxaa la yidhahdaa shipping industry si guud waxay uga hadlayaan in waxyaabahaas la joojiyo oo maxaa la dhahaa loo bedelo maxaa maraakiibta inay isticmaalaan maxaa la yidhahdaa energy-ga maxaa la yidhahdaa isha tamarta cagaaran ay isticmaalaan. marka waxyaaba marka ay xoog saarayaan oo dabcan aan iskala shaqay doono waxaa kamid ah in lala dagaalamo wasaqoobida hawada, maxaa la ilaaliyo istaandarada maxaa la ilaaliyo. sidoo kale in xog aan helno dee saan kuusoo sheegay nimankan waa niman 70 sano jiray. 70 sano marka xogtay aruurinayeen iyo maxaa la yidhahdaa information iska ahay aan ka faa'iidaysano. sidoo kale waxyaabaha mustaqbaliga oo maxaa la yidhahdaa digitalizationka iyo danabaynta iyo sida loo isticmaalo maxaa la yidhahdaa technology-ga loogu isticmaalo dekedaha inaan ayada lafteeda ka faa'iidaysano. aqoon iswadaarsi iyo tababaro sidoo kale. marka waxay noo tahay runtii fursad weyn ayay u tahay dekeda iyo dowladda Soomaaliyeed inaan ku biirno madashaas caalamiga. waxaan rajeynayaa inay ka qayb qaadato caalamiyeynta dekeda Muqdisho iyo inay positionkeedii adduunka ku leedahay hesho. sidoo kalena ay maxaa la dhahaa ay sheegeen wax soo saarkeeda iyo isku xiraanteeda adduunka iyo ka warqabkeeda ay qayb weyn ka qaadato. maarey qaybihii ugu dambeeyay su'aal weydiintiina ayaan isla soo gaarnay. waxaad bulshada u sharaxdaa maxay yihiin qorshayaasha mustaqbalka ee maamulka dekeda Muqdisho ku biirista ururkan caalamiga ah kadib? waa mahadsan tahay. runtii shaqooyin badan ayaa dekeda laga hayaa marka laga tago shaqooyinka yoomiga raridda iyo dejinta. marka laga tago saan hadda kuu soo sheegay dekeda waxay ku wajahan tahay iyadoo qaybka ah dowladda Soomaaliyeed qorshayaasheeda in maxaa la yidhahdaa la buuxsho oo adduunka maxaa la yidhahdaa codkeeda uu gaaro oo boos walba iyo association walba intii suurtagal ah in lagu biiro. marka dekeda waxaa qorshayaasheeda ka mid ah inay maxaa la fagaarayaasha caalamiga ay buuxiso oo iyadoo ay cod u noqoto halkii maxaa la yiraahdaa laga yaabaa in dad kale oo ama deriska ama maxaa la yiraahdaa wadamo kale inta buuxshaan meeshii ay dantaada ka shaqaynaynin ay maxaa la dhahaa si kale u dhigaan annagu inaan fagaaro walba joogno. marka qorshayaasheeda waxaa ka mid ah inaan ururada caalamiga kuwa aan qayb ka ahayn inaan ku biirno, inaan xoojino joogitaankayaga maxaa la yiraahdaa caalamiga iyo wada shaqaynta maxaa aan la leenahay dadka ka shaqeeya maxaa la yiraahdaa sectorkan. gabagabadii maxaad fariin ah oo u diraysaa bulshada iyo badda ee ku saabsan guushan cusub ay soo hoyeen maamulka dekeda weyn ee Muqdisho? gabagabada fariinteedu waxa waaye runtii waxaan dowladda Soomaaliyeed si guud shaqo ballaaran ayay wadaa oo maxaa la ku saabsan ama ku foogan in laga faa'iideysto maxaa la kheyraadka oo maxaa la dhahaa badda iyo dekedaha. kheyraadku kaliya maahan shidaalka iyo maxaa la yiraahdaa iyo kalluunka iyo macdanta iyo kaliya maahan. kheyraadka waxaa ka mid ah badda Ilaahay ku siiyay inaad maxaa la yiraahdaa uga faa'iideysato ganacsi inaad uga faa'iideysato, inaad u isticmaasho adduunka inay maxaa la yiraahdaa badeecadaha marsiistaan, inaad maxaa la yiraahdaa ay sheegeen transshipment iyo badeecadaha in meeshaada la dhigo oo hab aan noqoto. runtii lacag badan iyo fursado badan ayaa laga sameyn karaa. marka waxaan leeyahay dadka Soomaalida ganacsatada iyo maxaa la dhahaa dadka arrimahan ku foogan waxaan leeyahay meeshaas fursad badan ayaa ka jirta. wadanka waa ogtiin hadda waa soo kabanaya shaqada badan oo ay dowladdu qabato darteed nabadgelyada way soo kabanaysaa waana la soo aaminayaa. maanta waxaa nala jooga ama dekeda Muqdisho waxaa isticmaala kambaniyada ugu waaweyn adduunka maxaa la daabula badeecadaha. saddexda kambaniya ugu waaweyn ama shanta ugu horeeya ku jira ayaa maanta isticmaala oo soo aaminay oo maxaa la yiraahdaa European ah ayaa soo aaminay oo badeecadaha keena. marka waxay kutusinaysaa in wax badan ay soo reynayaan
marka dadku inay aaminaan ka faa'iidaystaan dhinacaas loo jeesto oo maxaa la yidhahdaa wax badan ayaa runtii fursado badan ayuu leeyahay dowladdoodana aaminaan oo maxaa la dhahaa ay sheegeen shaqo badan ayaa runtii laga hayaa dhinacaas marka intaas ayaan shacabka ugu baaqi lahaa